kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waa barnaamijkii kabtanka siyaasadda oo aad naga daawataan Somali American TV oo noo soo diyaariyo Cali Xaraare. Cali wiigal maxaad noo haysaa? Bismillahir Rahmanir Rahim. Waxaan ku bilaab doonaa inagu dadka hawada ugu soo gudbinayna sawan diiran dadka inagu xidhan inagu taxan daawadayaasha aad iyo aad arrimaha inta badan dadka Soomaalidu ay danaynayaan ay meel yar bidhaminayna صح رئيس وزراء هوري سوماليا حسن علي خيره waxa uu tagay magaalada Nairobi صحيح waxa uu la kulmay madaxda iyo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta hadaladii ay isiraahdeen ayaa qoraal ahaan loo soo diray waliba dad Kenyatta ay soo direen صح waxa uu kala hadlay in hadii uu madaxweynaha noqdo maadaama uu murashax yahay in xasan علي خيره uu wanaajin doono oo intan in ka badan ama ka fiican oo xiriirka labada dal uu sameyn doono inuu sameyn doono Kenya doono waayahay wuxuu kala sheegay arrintan murugsan ee badda aadiyad ay Kenya kula murmayso Soomaalida ee laalana ilaa hadda maxkamadda taala in uu ku dhameyn doono si qurux badan halka quruxda aanu algo yardiidi arrinkaas waxa weeye hawshaasna waan soo afjari doonaa si labada wadanba ay raali ku yihiin arrintaas aad bay u raali gelisay Uhuru Kenyatta iyo dadkii Kenya oo aad ugu farxay صح Kenya intaan xasan علي خيره galin waxa jooga ab mucaarad oo dhan aad iyo aad waan arkay marka dawladda Kenya waxa ka caarisan tahay laba arrimood arrinka badda oo ay Soomaali ku kala dhinteen aad iyo aad oo ay cadaawad weyn ay abuurtay qodobka labaad qaadkii baa laga iibsan waayay jiq dhaqaale fara badan baa dadkii shacabka beeraleyda dhulka la gashay arrintaasina saameyn dhaqaale weyn ay ku yeelatay oo aan la dafir karayn ayay maartay ku dhigtay waxay ku reeyn lahayd dawlad badana u deysa qaadkana ka iibsata inay hesho oo xaqii tafaariiq jumla kaga qaadato marka by any means si kasta u dhacdo waa inay maalgelin iyo kharash ba ay geliyaan in cid u heelan arrimahaasi in ay soo saaraan mucaaradkii oo dhan Nairobi ay tuman yihiin waxa dhibaato oo mar walba dadkeena Soomaaliyeed mucaarad iyo cid kale aan uga digaa marnaba ha isku khaldinina Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dalka Soomaaliya aad iyo waa laba kale yihiin Soomaaliya inagoo dhan صح mucaarid maxaafid محمد عبد الله فرماجنا والشخص كم إذا 15 مليون صومالي أدياد وصح wax kasta oo aad leedahay waxbaad ku yeeli karaysaa farmaajo hadii aad aragtid in dantii guudna ay dhinac ka burburinayso wanaad ka joogtid aadiyad waa tiraahid mucaarad aba tahay niyada arrinkaas waan sameyn lahaa laakiin dalkaygi ay sumcad darro ku noqonayso aadiyad Uhuru Kenyatta hoosta ka wada galeen mid walba wuxuu leeyahay baddi anaga keenina deena qof walba wuxuu jecel yahay waa in laga sheekaystaa Uhuru sheekada u fiican u jecel yahay baddaas wax kale ka degay male waa sheeko aad iyo aad ugu haddana yaa jooga meesha raggi badan iibiyay kuwa ugu waaweyn marka la ku cunaya Umar Abdirashiid wargii lagu eedeynay inay badan iibiyaan gadeen baa lacagta qaateen Cabdiraxmaan Cabdishakuur ma huwa Sheekh Shariif ragii sida gaarka iyo dawladda lagu eedeynay oo goobjoog way fadhiyaan xasan علي خيره marka dad far badan baa aad uga xumaaday in uu sidaas sameeyo oo uu nimankii shalay uu ku shideeyay ee uu lahaa badayada annaga iskale gorgortana kuma jirto in maanta intuu u tago isagoo sidii bisad qoyday inuu ku yiraahdo hawshaas waa dhameynaya dadka Soomaaliyeed kumay farxin aad bay wax xumaaday waxa jirtay Janan Jarmala xilliga Hitler dagaalkii koowaad dagaalkii labaad ninkaasi Hitler Janan dhan oo guutooyin wata ayuu ninka ka sheekanaya oo taangidoodu wuxuu diiday xukunkii iyo maamulkii Hitler ayuu diiday UK ama England ayuu galay ayuu iska dhiibay Janan dhan oo Jarmala oo soo galay wadanka hore baa kacay wala soo dhaweeyay dagaalkuna meel xumuu maraya waa la kaxeeyay waa la casmay hodeel baa la geeyay waa la ilaaliyay xagga la geeyay ninka hadli maayo shib markii dambe loo tago waxa la yiri waxaan ku weydiinay daniel noo warrami maysid
صح ويجي صدح حبة مرسا صح محاجر الخلدن هي وحيلو حين ويدي إذنكو واحد دون إنسان معارض قف معارض كوا هتلر بس واحد دون إنسان خاين الوطن ودن كيسي إذن كورما oo ila inta soo diyaarado ay magaalo Hibley la inta si taangeedu ahaayeen ciidamada goosanka halkaas ku jiraan ciidamada kale dhufaysiga halkaas ku jiraan oo dalkiisa idinka xawarama hadii aan idin sheego buu mucaarad number 1 baan ku ahay Hitler ninka la yiraahdo sax laakiin dalkayga iyo dadkayga mucaarad ku mihi wax la idinka ma sheegayo waxaan idinka sheegay hay ama idila ama idilina idinka idinta la ninkaasi wuxuu ahaa muwaadin dhab ah aadiyad oo sax sama nin weyn oo okay dunia qolada Soomaaliyeed ee joogta Nairobi iyagu sida ninka aan ku hadlayna ma aha waa ku uhuru u waramaya waxaan haysano iyo waxaan madaaficsidano iyo waxaan dabacsannahay iyo iyagoo ku xumaynaya madaxweynaha ama ra'iisul wasaare Soomaaliya kamid waa doqonim waa ayaan daro aad waa sharaf daro arintaas ma aha wadaniyad waxaan la qoloyinka weligiin mucaarad ahaada صح adag oo waliba is haysta صح laakiin waxa maaragtay danta ummadda Soomaaliyeed iyo sumcadda ummadda Soomaaliyeed iyo ubadkiina ku asumcad daro ha qaadanina waa sax soor quureed hotel yar oo aad ka seexataan Nairobi oo uhuru ka bixiyo iyo dawladda Kenya ma hadda wax weyn ma hadda sharafna ma hay farmaajina bilaw haray صح marka ay iska keen khaldaman hay inta ka tagnaa